Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaanu galnay waqti cusub iyo waayo kale. Waa sanadka 2021. Haddaba su-aashu waxay tahay ma sii ahaan doontaa qofkii aad ahayd mise isbeddel ayaad samayn doontaa? Sidee hadafkaaga u gaari kartaa? Hadaf si wanaagsan loo qorsheeyey wuxuu la mid yahay hadaf qayb ahaan la xaqiijiyey. Qofka aad rabto inaad noqoto iyo waxaad jeceshahay inaad gaadho waa geedi nololeed, mana aha wax hal habeen lagu gaari karo. Dhowr hadaf ayaad yeelan kartaa, laakiin waa inaad u kala horreysiisaa sida ay u kala mudan yihiin. Maxaa muhiim kuu ah oo aad rabtaa in aad samayso ama aad gaadho wakhtiga dhow? Waxaa habboon in hadafka aad rabto inaad gaadho wakhtiga dhow uu yahay mid u sii gogol xaadhaya gaadhista hadafka wakhtiga dheer. Waxyaabaha kuu fududayn kara gaadhista hadafkaaga waxaa ka mid ah: 1. Qeex hadafkaaga. Caddee oo qeex hadafka aad rabto inaad gaadho. Ku qor meel aad mar kasta ka arki karto. 2. Ha noqdo mid caqligal ah. Waa inaad hubisaa hadafka aad rabto inuu yahay mid la xaqiijin karo. 3. Ha noqdo mid la taaban karo. Waa in hadafkaagu noqdaa mid xadidan oo la taaban karo. 4. Hadba tallaabo qaad. Waa inaad yeelataa hadafyo yaryar oo aad ku gaari karto hadafkaaga weyn. 5. Rumayso in aad gaari karto. Intee in leeg ayaad aaminsan tahay in aad gaari karto hadafka aad leedahay? Si fiican ma kugu muuqataa guusha uu hadafkaagu ku dhammaanayo? Haddii aad niyad geliso oo si weyn u aaminto in aad gaari karto waxaad rabto, waxaa hubaal ah inaad hadafkaaga gaari karto. 6. Waqtiyee hadafkaaga. Waxaa muhiim ah inaad hadafkaaga u yeesho waqti ku habboon oo aad qaban karto. Tusaale, iska ilaali inaad tidhaahdo mar uun baan samayn doonaa, mar uun baan waxaa qaban doonaa. Waxaa fiican in aad caddayso oo aad go'aamiso waqtiga aad wax qabanayso. Tusaale ahaan, beri 10 subaxnimo waxa ayaan qaban doonaa. Maalin kasta waxaad u noolaataa sidii ay tahay maalintii kuugu dambeysay noloshaada. Waxa aad maanta qaban karto beriha u dhigan, maxaa yeelay berri waxay la imanaysaa hawlaheeda gaarka ah. Shalayna waa waqti ku dhaafi oo aanad soo celin karin. Waa inaad maanta iyo waqtiga aad joogto wax qabsato oo aad ka faa'iidaysato fursaddan. Ogowna in waqtigu yahay waxa ugu qaalisan eed haysato. Ogowna in qof kasta mustaqbalkiisu ku xiran yahay ama uu u eg yahay hadba sida uu waqtigiisa uga faa'iidaysto. 7. Fiiri caqabadaha. Marka aad dejisato hadafyo cad oo la taaban karo, waxaa habboon in aad fiiriso caqabadaha kaa hor istaagi kara in aad xaqiijiso hadafkaaga. 8. Liishaanka ku hay. Iska ilaali in aad wax kale ku mashquusho ama aad meel kale u jeesato hadafka aad leedahay ee hadda gacanta ku hayso. Weli ma daawatay libaaxa eryanaya cawl? Cawshu waxay ka mid tahay xayawaanka aadka u dheereeya marka loo eego libaaxa. Ha yeeshee libaaxu wuu qabtaa. Maxaa sababay? Libaaxu mar keliya kama jeesanayo cawsha uu eryanayo, waayo bartilmaameedka keliya uu eeganayo wakhtigan ayaa cawsha ah. Dhanka kale, cawshu ma laha bartilmaameed iyo meel ay u ordayso. Waxa keliya ay ka ordayso waa libaaxa. Hadba cabbaar markay orodo ayay istaagaysaa si ay u eegto in libaaxu ka hadhayo in kale. Joogsiyadan tirada badan ee ay samaynayso ayaa libaaxa u sahlaya in uu qabto. Lambarka 9. Qiimee hadba halka ay wax kuu marayaan. Waxaa laga maarmaan ah in aad dib u qiimeyn ku samayso sida aad wax u wado. Isqiimeyntu waxay kaa caawinaysaa in aad ogaato in ay jiraan wax kaa qaldamay oo u baahan in dib loo saxo. Sidoo kale, isqiimeyntu waxay kuu sahlaysaa inaad ogaato tabaha sida fiican kuugu shaqeeyay ee aad u baahan tahay in aad sii horumariso. Lambarka 10 ee rabo inaan kaaga tago wuxuu yahay joogtay hadafkaaga. Waxaa laga maarmaan ah in aad joogtayso oo aad laasito hawlahaaga ku gaadhsiin kara hadafka aad leedahay. Ma jiro wax iska diyaarsan. Dadaal badan iyo adkaysi ayaad ku gaari kartaa wax kasta oo aad rabto in aad gaadho maanta.